Ivanovic oo la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta West Ham. West Bromwich Albion ay doonayso in ciyaaryahan Rice la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Chelsea. Common oo weli raadinaya ciyaaryahan Depay. Soo kale kooxda kubadda cagta Manchester United ay doonayso iminka in ciyaaryahan gayaan cagaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Al Shirawi oo la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Arsenal. Manchester City ayaa iminka doonayso ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Athletic Pacific oo la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta United iyo waliba Rob Holding oo si ama ugu biiro kooxda kubadda cagta ciyaaryahan Origi oo la filay inuu ku biiro koox ka dhisan dalka Turkiga iyo waliba Manchester United iyo warabna maxaa kala heesta faladaad ku cusubtay channelkeena subscribe garee noo saar soo kaleeto gamuleelka ku dhufo soo aad u hesho video kasta aan soo dhigno barteen haddii aan eegno ciyaaryahan Ivonix oo haa difaaci hore kooxda kubadda cagta Blues ayaa la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta West Brom oo iminka kusoo biirtay horyaalka Premier League. ciyaaryahan Ivonix ayaa ciyaaryahankii hore ay ku dhashan jirtay kooxda kubadda cagta Chelsea balse iminka la filayo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion waana 33 jeer. kooxda kubadda cagta Chelsea aad mooday inay weli baadigoobayso ciyaaryahan Declan Rice oo ciyaara kooxda kubadda cagta West Ham United balse kooxda kubadda cagta West Ham ayaa moodaa in ciyaaryahankan ay ku doonayaan 80 milyan soo kaleete waxay u sheegeen kooxda kubadda cagta Chelsea haddii ay u baahan ciyaaryahankan waa inay soo kaleete ku soo daraan ciyaaryahan Amazon oo ciyaara dhanka difaaca hase yeeshee kooxda kubadda cagta Chelsea aad moodaa intaas aysan ka go'neen soo kaleete wada hadal kale la filaya inay la yeelato kooxda kubadda cagta ee West Ham. tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona Koeman aan moodaa in uu weli baagidoowaya ciyaaryahan Depay u ciyaara kooxda kubadda cagta Lyon si walba ay noqoto labada ciyaarka iyo waliba labada kooxood ayaa ku heshiiyeen qiimo ay ku qaadaleen ciyaaryahanka balse waxaa jiro ilaa iminka warar kale oo sheegay in weli guddiga ciyaaraha siba dhanka suuqa Isbaanishka aysan weli go'aan ka gaareen ciyaaryahankani ku soo biro kooxda kubadda cagta Barcelona mana la yaqaano sababta rasmi ah ku dambeysay in uusan Depay weli ku soo birin kooxda kubadda cagta Barcelona. tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona Koeman oo la hadlaya Fox Sports Netherlands ayaa sheegay in Depay xilli kasta ku soo biri karo kooxda kubadda cagta Barcelona. dhanka leeyahay waxaan mooday in kooxda kubadda cagta Manchester United ay ku daaleen suuqa iminkase waxay suuqa soo dhigeen ciyaaryahan Dalot iyo waliba ciyaaryahan Rojo iyagoo ciyaaryahan Dalot ku doonaya 22 milyan halka Rojo oo isagana ay ku doonayaan 8 milyan balse kooxda kubadda cagta Lyon oo doonaya ciyaaryahan Dalot ayaa sheegay inay diyaar ku leeyihiin United ay siiyaan 7 milyan balse United ayaa moodaa in aysan qiimahaasi marnaba aqbali dooneen waxaana ilaa iminka ay ku dhigayeen qiimihii ay hore u soo gateen ciyaaryahan Dalot. dhanka iyo kooxda kubadda cagta Arsenal haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxay hal sano oo amaha ku doonayaan ciyaaryahan Al Shirawi balse kooxda uu ka tirsay ciyaaryahankan ayaa marnaba aqbali doonin inay amaha ku dhibaan ciyaaryahankooda dhanka weerarka ka ciyaara. kooxda kubadda cagta Manchester City aad moodaa in aysan si fiican soo dhaqmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda balse waxay dalab rasmi ka gudbeen ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta Athletic Madrid oo lagu magacaabo Jimenez 89 milyan balse kooxda Athletic ayaa ciyaaryahanka dul saartay 120 milyan. warabna awli socotay kooxda kubadda cagta Manchester United aan moodaa iminkan u jeesteen cagayo ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan Pacific ciyaaryahankan ayaa kooxdaas ku doonayso 25 milyan balse Manchester United ayaa weli gorgoranayso warabna socotay Manchester oo xagay u socdaan waxay keenaan ma jiraan ilaa iminka soo kaleetii haddii aan eegno ciyaaryahan Rob Holding oo ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxaa doonaya kooxda kubadda cagta West Ham si ama iyagoo dhiibaya 5 milyan ay doonayso kooxda kubadda cagta Arsenal. Rob Holding ayaa la filay inuu saacadaha soo socdo ama maalmaha soo socdo ku biiri doono kooxda kubadda cagta West Ham si ama ilaa ciyaareedka soo socda. xagga Liverpool haddii aan eegno laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool rogaad mooda inay u baahan yihiin kooxda kubadda cagta Fenerbahce ee ka dhisan dalka Turkiga balse dhowr kooxood ka tirsan horyaalka Premier League
sida kooxda kubadda cagta Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Fulham kullu way doonayaan ciyaaryahankan weerarka u ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool waana ciyaaryahan inta badan muhiim u ah kooxda kubadda cagta Liverpool haddii aad eegtid horyaalka Champions League golal badan ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay gool ku gaartay iyo kulleeyada sidoo kale ee Premier League marka ciyaaryahan Origi ma naqaan sababta u gadeen kooxda kubadda cagta Liverpool waqti cadirkan balse si walba ay noqoto waxa la filayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Fenerbahce iyo cagaya Turkiga wow ciyaaryahan Mahrez aad moodo inuu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda kubadda cagta Manchester City ciyaaryahan Mahrez ayaa waxaa ku dhacay cudurka halista COVID-19 ama coronavirus kaasoo in badan ka soo kabanay balse imika waxaad moodaa inuu ku soo laabtay tababarka buuxa kooxda kubadda cagta Man City waxaana la filayaa inuu kulamada soo socdo kooxda kubadda cagta City diyaar u noqon doono haddii aan eegno ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Real maxaa kala haysta runtii inta badan kooxda kubadda cagta Real iyo kooxda kubadda cagta Man United heshiisyadooda ayaad moodaa in inta badan uusan qarsoomin siba 2005 haddii 2015 haddii aan eegno ciyaaryahan De Gea ayaa la filayay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid balse waxaad moodaa in United ay kasoo tageen waraaqood muhiim ah oo loo baahay in heshiiska uu dhamaado balse sida awgeeda heshiiska ayaa dib u dhacay wixii markaas ka dambeeyay moodaa in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay u qaaday colaad si kala United inta badan heshiisyo dhowra United doonayso sida ciyaaryahan Morata ciyaaryahan kooxda kubadda cagta United doonayso ayaa waxa u diiday United si wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus ama soo kale 2016 markuu dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Real Madrid markale United way dalbadeen way ka diideen United ayaa markaasi waxay u leexdeen cagga ay ciyaaryahan Lukaku ka soo qaadeen kooxda kubadda cagta Everton hadda si haddii aan eegno ciyaaryahan Regulans aad moodo difaacu ciyaar United ay ku doonayso lacag waaliya oo 20 milyan balse waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Real ay ka diiday iminkaas la filay Rowan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Tottenham soo kaleeto Gary Bale ay u baahan tahay kooxda kubadda cagta United iminka waxaad moodaa in uu dib ugu laabanay kooxdiisa hore Tottenham si ay uga qayb dhigto in Real ay hesho ciyaaryahan Dani Ali soo kaleeto haddii aan eegno kooxda labadan kooxood aad moodaa in heshiisyo uusan dhowr ah uusan macquul ahayn tan ayaad keentay in marka Manchester United ku qasban tahay inay dib ugu laabato cagayo Jadon Sancho ay soo kooxda Tottenham lacag kasta u baahantay barnaamijka sport iyo maanta ciyaaray waa naga intii aad u mahadsantiin waqtigiina